dhacdooyinka yaabka leh ee la arkay 2022 waxaa ka mid ah wiil ka cararaya hooyadii dhashay walaashii iyo qof walba oo dumar ah. inta aanan kula wadaagin dhacdooyinkan yaabka leh nagu soo bir oo nagu dhiirigeli subscribe ta like-na noo saar YouTube-ka si aanu idinku faraxno dhiirigelin ay noogu noqoto. bal ila daawo fiidiyowga wiil la socda gabdho walaalihiis ah oo la kulmay hadallo qalbi jab ah oo aan banaanayn oo aan diinteena islaamku noo ogolayn. subxaanallah. daanyarka weyna cadaada wakaas halkaas oo si gabdha si wada waa daanyarka weyna gurule war gurule cadaada dhaqabtooy warqabtooy boorsada ma ayaa asaga u sidaday gurulaha weyn sana maanta la qabtay magaalada dhaho Boosaaso daanyar baa waxa lagu qabtay 12 naagood isagoo garoon ku soo gelinaya si lacag la'aan ah. okay daanyarkan waxa la qabtay isagoo garoonka ku soo gelinaya si lacag la'aan ah. right sidoo kale dhacdadan ayaa waxay ka dhacday magaalada Garowe ee Puntland. wiil ayaa xaafad u kaxeeyay laba gabdhood oo ay mid tahay walaashiis la dhalatay midda kalena ay tahay in adeertiis. ayagoo wadada maraya ayaa niman arkeen wiilkan labada gabdhood wata, kadibna way ku qayliyeen waxayna dhaheen daanyeer warbal fiiriye axadkaas labada gabdhood jiidaya. runtii wiilkii waa uu xanaaqay wuxuuna damcay inuu la dagaalamo nimankii, balse arrintii waan ayaa laga galay waana la xaliyay. wiilkii waxaa lagu qanciyay inuu iska tago isagana dulqaato. nimankii wiilka maagayay oo ku yiri daanyeerka waa ay ku siin adag yihiin oo waxay leeyihiin muxuu isla waalwaalayaa ninkan daanyeerka ah. runtii arrintan waa mid waayadii dambe bulshada ku soo korortay oo haddii la arko wiil gabar la socda waxaa loogu yeerayaa daanyeer cajiib, iyadoo laga yaabo gabadha wiilkaas uu la socdo in ay tahay eedadiis ama sida hooyadiis ama walaashiis ama xaaskiisa. waxaa laga yaabaa xataa in kuwa muuqaalo dhumaalaysi ah ay ka duubaan wiil iyo gabadh wada socda kadibna ay faafiyaan. waana arrin xadgudub ah oo aan dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan meelna ka soo galin, qofkuna uu kugula tagi karo maxkamad. daawade dhacdada noocan ah adiga marna ma kugu dhacday? sideese u aragtaa in wiil Soomaaliyeed oo la socda gabdho laga yaabo inay yihiin walaashiis ama hooyadiis ama xaaskiisa in loogu yeero daanyeer? sidee u aragtaa? nala wadaag fikirkaaga.